ugu horreyn waxaan salaamayaa Professor Richard oo ah runtii academic leadka ama macalinka maaragtay haddeer shaqada waxbarashada ee macad gacanta ku haya. Waxaan kaloo salaamayaa marti-sharafta kale oo ka soo qayb gashay oo ay ugu horreeyaan guddoomiyaha xaafadda Biyo Kulule iyo dalladda dhalinyarada uu ka socday gobolka Bari. Waxaan kaloo aad u salaamayaa isagana u mahadcelinayaa runtii inuu nagala soo qayb galo Nathan oo ka tirsan xafiiska cilmi baarista ee jaamacadda Siyaari, sidoo kalena ah research coordinator-ka Siyaari. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo Zahra iyo Deeqa oo iyaguna shaqadan quruxda badan maanta in la maaragtay heerkan soo gaadho dadaal badan ku bixiyay, juhdi badanna ku bixiyay. Runtii waxaan aad ugu faraxsannahay inaynu maanta halkan isugu imaanayno inaynu ku dhiirigelino sidoo kalena aynu ku xusno dadaalkii ay sameeyeen ardadii muddadii haddeer uu shaqaynayay macadka luqadaha. waxaa ogtihiin waxbarashadeenna Soomaaliya marka laga hadlayo waxaa focuska la saaraa inta badan waqti badanna la geliyaa ilmaha in la baro hingaada. waxaa ku xigta in la baro wax la yidhaahdo af Soomaaligii, in la baro qoraalkii iyo hadalkii iyo in la baro. juhdiga intaa leeg waxaa loo geliyaa waxa weeye maadaama luqadda inuu aan leenahay inuu qofku barto luqadda af Soomaaliga ah, ku hadli karo, wax ku qori karo, akhrin karo. waxyaalaha marka aynu ku filgoona waxaa ka mid ah qofkii intaa marka laga soo dhiso maadooyin baa la siinayaa tiro badan oo luqado kale ku qoran. luqadihii kalena juhdi intaa leeg lama gelinayo oo ardaygii lama barayo. waxaa afka laga gelinayaa inuu barto 12 sano oo waxbarasho ah oo iskuul ah oo inta badan ay tahay waa maxay luqado kale ay ku baxayaan. jaamacadda markuu tago maxaa ugu horreeya? waxa ugu horreeya luqad kale ugu horreysa. luqaddaas juhdi badan looma soo gelin, lagama soo dhisin inuu ka soo bilaabo maxay, inuu hoos ka soo bilaabo lagama soo dhisin, foundation inuu ka soo bilaabo lagama soo dhisin, elementary level ama beginner level inuu soo bilaabo soo develop gareeyo luqaddii lagama soo dhisin. si marka balansigaas aan u saxno waxaan soo kordhinay ama hindisnay platformkan CLC-gaasi uga qabtiro in la helo platform u gaar ah oo lagu soo dhisayo luqaddii. even qofkii xataa skip gareeyey oo jaamacadda meeyey laftigeeda uu yimaado uu access u helo in environment lagu wada hadlayo Englishka, communication-kuna uu asal ka yahay in la maaragtay uu jiro marka uu soo galo iyo marka inta uu ku jiro meeshaasna uu waxaan English ahayn uu soo isticmaalay. arrintan waxaan is leenahay barbilow fiican bay ahayd runtii. waxaan qiraynaa waalidiinta iyo maaragtay dhammaan sidoo kale dadka xiriirka la ardadan u sheegaynaa in ardadan hadda maanta halkaa fadhida muddo 6 bilood ay macadkaas dhiganayeen, runtii dadaal badanna ay sameeyeen. waxaan aad ugu faraxsannahay runtii guusha maanta inay soo gaaraan. waxaan leeyahay waqtiga maaragtay haddeer aad geliseen weli waa barbilow. waxaa u baahan tihiin inaad sii wadaan, inaad kor usii qaadaan, inaad horumarisaan, inaad waqti iyo dadaal badan aad gelisaan, inaad kor u qaadaan. waxaa la yidhaahdaa luqadda waxyaalo fara badan bay leedahay oo way kala duwan tahay. waxyaalaha maaragtay oo innaga haddeer maalin lexdaas waxaa jiray dhacdo anigu aan goobjoog u ahaa oo meel isbitaal aan joogay oo nin dhakhtar uu joogay. marka dad oo waxa u yimid ajnabi ah baa u yimid. marka waxyaalaha aadka aan ula yaabo waxa weeye qof dhakhtar ah oo bulshadeenna meesha ugu sarreysa hadda dadka maaragtay dhakhaatiirta ama xirfadaha jooga ay tahay. waxaa u jooga translator baa u jooga. marka muxuu translator baa muxuu uga qaadanaya lacag uga qaadanaya inuu u translate gareeyo maxay inuu bulshada u adeegayo ula hadlo. arrintaas marka macallimiinta iyo maamulayaasha iskuullada iyo cid kasta oo waxbarasho ka shaqeysa iyo goobaha shaqada iyo xafiisyadaba dadka jooga waxaynu u baahannahay inay kor u qaadno maxay skillskeena. adduunku maanta uu isu furmay. waxaa ogtihiin Soomaaliya hadda maanteed waxaa la waxay ku biirtay ururka bariga Afrika soo maahayn. dunida saas isugu furfurmaysa. interactions badan baa jira, dadka ganacsatada dad kaloo ganacsatada bannaanka bay la xiriirayaan. haddii marka toolkii aad isticmaalaysay ama communication-ka qaabka aad u sameynaysay uu kugu yara adag yahay oo translator aad u baahan tahay de waxaa u baahan tahay marka runtii culays fara badan baa xaggaa ka imaanay. sidoo kale
waxaan kaloo rabnaa inaan maaragtay iyadana halka aan ku daro in aan luqaddii carabiga iyada laftigeeda aan bilaabayno oo iyada laftigeeda si maaragtay manhaj standard oo haddeer jaamacaddu ay keentay oo haddii allah awoodale uu inoo ogolaado inaan marka sagaalaad bisha sagaalaad la bilaabi doono sida luqadda ingiliishka loo baranaya loo barto waxaa kaloo iyada laftigeeda muhiim ah inaynu luqadihii kale iyada laftigooda aan keenno oo ay ka faa'iidaystaan dadku oo luqadihii kalena access ay u yeeshaan inay bartaan waxaynu ognahay maanta qofka luqadaha badan yaqaana uu ka fursad badan yahay wuxuu ka fursad badan yahay qofka hal luqad yaqaan ardayad baa hadda halkaas soo istaagtay waxay sheegtay inay iyadu wax ku baratay markii hore afcarabi qofku wuxuu samayn karaa mar walba wuxuu luqadda uu wax ku barto oo uu ku soo dhigto ama uu aadka u isticmaali jiray wuu sii horumarin karaa iyada laftigeeda si markaas aysan luqaddii meesha uga bixinna waxaa qurux badan maadaama aanay jirin community badan oo halkan jooga oo luqadda isticmaalaya qofki inuu wax ku shaqeeyo oo practice gareeyo inuu isticmaalo daily lifekiisa ay habit u noqoto si uu kor ugu sii qaado waxaa mar walba xoojinayaa idin kula dardaarmayaa inaad ku sii wadaan oo sii kor u sii qaadaan aqoontiina iyo dadaalkiina sidoo kalena aysan noqon meeshii maaragtay ay ku joojin lahaydeen inaad sii wadaan inaad qayb ka noqotaan bal si ay u gaadhaan heerka maanta uu joogo ustaadku idinku aa macallimiin noqotaan aad dadka bartaan marka goolka iyo ujeedka iyo meesha u socotaan halkaa ha noqdo insha allah waana gaaraysaan dhammaantiinna waa idinku hambalyeynayaa runtii inaa maaragtay dadaalka aad samayseen annagana aad bay noo farxad gelinaysaa runtii in maaragtay ay ku dhiiradaan ama arday fara badan ay soo codsadaan in maaragtay ay ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan fursaddan kaga faa'iidaysto ardayda jaamacadda dhigata oo dhammaan fakultiyada kala duwan ah iyaga laftigooda in jaamacaddu ay fursad u siisay oo ay maaragtay inay ka faa'iidaystaan oo waqti ay geliyaan luqadda sidoo kale ardayda jaamacadaha kala dhigta iyo goobaha kale waxbarashada iyo laftigooda jaamacaddu waxay u siinaysaa access inay ka faa'iidaystaan sababta waxaynu u baahannahay inaynu helno madal kor loogu qaadayo luqaddeenna aqoonta iyo xirfadda aan u leenahay luqadda sidoo kalena inaynu helno macallimiin khibrad u leh iyo manhaj standard ah oo maaragtay universal ah oo ardayga kor u qaadaya balansigiisa speakingkiisa iyo writingkiisa iyo skills kala duwan maaragtay luqaddu ay u baahan tahay ama competitiska badan ay u baahan tahay mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin hambalyeynayaa waxaan idiin rajeynayaa in halka ka sii wadaan waxaan rajeynayaa haddii alla idmo in aynu maalin kale isugu imaan doonno innagoo maaragtay halkaas mustawa kale oo ka sarreeya halkaa joogna aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu